dhankaas iyo wadanka Masarna waxaa si aad loo hadal hayaa warbixin ku saabsan dibqalooc mucjiso ah oo la sheegay in lagu arkay saxaraha wadankaasi Masar qaybo kamida. dibqaloocan ayaa waxaa kadib lagu sameeyay baaritaan lagu ogaaday in suntiisu ay tahay dawo qaali ah oo markii dambana gaadhay in qaybo yaryar oo suntiisa kamida la kala siisto lacag gaaraysa $7,500 Mareykanka ah. arrintaasi ayaa waxa ay ku faaftay warbaahinta dunida kadib markii arrintaasi la xaqiijiyay waana nooc cusub oo aan hore loogu arki jirin dhulka wadanka Masar. arrintan oo lagu soo bandhigay magaalada Qaahire ee wadanka Masar ayaa waxa lagu tilmaamay dibqaloocan inuu yahay mid cusub oo wadankaasi aan hore ugu badnayn, waxaana la sheegay in sunta xayawaankan ay tahay dawo qaali ah. shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa waxay iibsadeen sunta xayawaankan dibqalooca ee laga helay wadanka Masar, halka garaam ee suntiisa ahna waxaa la siistay $7,500. arrintan ayaa waxa ay timi kadib markii nin cilmi baadho ah oo u dhashay wadanka Masar oo lagu magacaabo Ahmed Al Saud uu baaritaan ku sameeyay qaybo kamida saxaraha wadankaasi ee loo yaqaano Wadi Al Jadid, waxaana uu ku arkay xayawaankan. baaritaankaasi kadib ayaa waxaa la sii horumariyay farsamada arrintan ku saabsan ee dhinaca suntiisa lagu tijaabinayay, taasi oo ugu dambeyntii soo baxday in dawo laga hal abuuri karo.